deegaanka Soomaalida waxaa markii ugu horeysay la keenay qalabkani idin muuqda oo daruuraha loo isticmaalo isla markaana afka qalaad loogu yeero cloud seeding technology waa markii ugu horeysay ee deegaanka Soomaalida qalabkani laga hirgelinayo jimcihii toddobaadkani ayaa si rasmi ah loo daahfuray waxaana uu qalabkani oo ku yaala agagaarka magaalada Jigjiga uu noqonaya mid kamid ah laba nooc oo qalabkani ah oo deegaanka Soomaalida dhawaan la keenay isla markaana loo isticmaali doono daruuraha ka kale waxa uu ku yaala magaalada Qabri Bayax xirfadlahan lagu magacaabo Gedamu Getinat ayaa waxa uu iga warbixinaya qalabkani iyo waxa uu yahay iyo sida looga faa'iideysanayo yimaashin qalabkani ma aha mid iskii roob u keenaya laakiin waxa uu caawinaya daruuraha roobka sameeya iyo xaddiga biyaha roobku in ay biiraan qalabku waa laba nooc kan hadda idiin muuqda iyo mid helicopter lagu qaado oo xagga sare daruuraha lagaga soo buufinayo mashiinkan waxaa ku jira laba maado oo kala ah sodium chloride iyo potassium chloride marka hawada sare lagu sii daayo waxa ay sababayaan in ay soo ururiyaan dhibcaha roobka qalabkan wuxuu ku shaqeynayaa tamarta cadceedda waxaana si toos ah looga hagaa Addis Ababa maamulku waxay ogaan karaan xilliyada ay daruuruhu jiraan aagan isla markaasi ayaa mashiinkani uu daarmaya maadooyinka kiimikada ana hawada ayaa lagu sii deynayaa deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee xaruntani tijaabada ah laga sameeyo kal hore waxa jiray meelo kale oo laga hirgeliyay dadku waa in ay fahmaan in qalabkani aanu iskii roob u keenaynin laakiin waxa uu caawin karaa in kor loo qaado xaddiga biyaha roobka ee da'aya ዝናብ አይሰጥም ግን የዝናብ ሲስተሙን ከፍ ያደርጋል